garoonka diyaaradaha ee magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa maanta ka degtay diyaarad sida agab caafimaad oo dowladda federaalka Soomaaliya u dirtay halkaasi. qalabka ay diyaaraddu maanta ka dejisay degmada Guraceel ayaa isugu jira daawo iyo agab kale oo caafimaad kaas oo looga hortagayo xanuunka safareenka ee COVID-19 oo ku faafay gobolada dalka Soomaaliya. dhowrkiis oo xanuunka COVID-19 ayaa laga helay degmada Guraceel maalmihii la soo dhaafay, waxaana dadka ku nool magaaladaasi dalbadeen in gurmad caafimaad oo degdeg ah loola soo gaaro. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ayaa garoonka diyaaradaha ee degmada Guraceel kula wareegay deeqdaas caafimaad oo ugu timid xukuumadda federaalka Soomaaliya. madaxa sheybaarka dowladda federaalka Soomaaliya wakiilna ka ahayd qalabkan caafimaad ee maanta la soo gaarsiiyay degmada Guraceel ayaa waxay faahfaahin ay ka bixisay dhaqaatiirtan iyo daawadan maanta la soo gaarsiiyay degmada Guraceel oo iskugu jiro dhaqaatiir nurse iyo sheybaaristayaal. waxaan halkan u imaanay inaan maxaan ku dhahay degmada Guraceel oo guddoonsiino iyo wasaaradda caafimaadka Galmudug qalab iyo alaab looga hortago COVID-19 oo qaadno sambalo maxaa la dhahay sheeg lagu soo baari doono sheybaarka dhexe si maaragtay xaaladda degmada loo ogaado iyo in cudurku meeshan ka jiro in kaleeto. marka waxa way waa soo dhow si fiican baan loo soo dhaweeyay. waxaan rajaynayaa in maxaa la dhahay sheeg aan shirar yeelan doono oo wasaaradda caafimaadka anaga sidoo kale taan maxaan ku dhahay isbitaalaadka iyo meelaha loo asteeyay in cudurkan lagula tacaalo aan. sidoo kale wasiir ku xigeenka caafimaadka maamulka Galmudug oo isna goobtaasi ku sugnaa ayaa sheegay in agabkan loo adeegsan doono sidii loogu talagalay oo looga hortagi lahaa cudurka safareenka ee COVID-19 oo dadka uu soo rita lagu daaweyn doono. isolationka maanta waxaan rajeynayaa insha Allah taala in Guraceel laga furo dadka reer Guraceel iyo deegaanada u dhow iyo dhammaan dadka reer Galmudug ay ka faa'iideystaan agabka caafimaadka. waxaan rabnaa inaan fariin halkan uga dirno dadka reer Galmudug. hadda waxaan inii shaqeynayaa runtii xarumo badan oo isolation oo lagu dagaalamayo ama lagu daaweynayo cudurka COVID-19 bukaanada qaba. xarunta isolationka Dhuusamareeb, Cadaado, Cawdwaq iyo Guraceel aan maanta taaganahay. balanballe iyo gaalkacaydan waxaan rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah taala inay ka howlgalaan. hubiyana waa rajeynayaa insha Allah taala aydan qalabkiga loo sii wada maalmaha soo socda aydan halkaas laga furo xarunta isolationka. marka waxaan rabnaa dadku inay tagaan xarumahaas oo dhammaan laga helayo oksijiinadii iyo daawooyinka lagula tacaalayo cudurka COVID-19 ee qofka uu ka helayo saacitaan caafimaad uu ka helayo. waxaan rabnaa wacyigelinta socota aydan in dadka reer Galmudug ay ka faa'iideystaan oo wacyigelinta u dhigan nugulaadaan oo bahda caafimaadka ay soo gaarsiinayso wacyigelinta aydan in la qaato oo la dhageysto bahda wacyigeliyaasha caafimaadka ee deegaanada kala duwan jooga. waxaan ka mahadcelinayaa runtii marar badan tiim badan oo caafimaad oo halkan la soo gaaray oo runtii agab kasta caafimaad halkan imaanay la socday shaqana ka qabanay oo sambalo badan iyo baaritaano badan halkan qaaday. waxaan ka mahadcelinaynaa sheybaarka dhexe ee qaranka ee magaalada Muqdisho ayadana sambalada loo qaado si fiican loogu baaro. muddooyinkii dambe maamulka Galmudug ayaa walaac xoogan ka muujiyay saameynta COVID-19 oo ku yeeshay deegaanadooda, iyagoona madaxweynaha maamulkaasi dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ku dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad. waa markii ugu horeysay oo diyaarad sida agab caafimaad ay ka degto degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud tan iyo markii uu bilowday cudurka COVID-19. Cabdinuur Cismaan Carays, Wadani Radio and TV.